قداع لما دوني كروس وحام كله inaan amiirsaday hamoodinay. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan ee xilli walba oo idiin tahayba halka aad nagala socotaan waa sariicaad ku soo dhawaada maalin kale iyo muuqaal hor leh. aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad inoola socotaan inoo garab taagantiin inoo dhiirigelisaan inoola duubantiin hiil iyo hooba aad baan idinkaga mahadcelinayaa inta dib inooga soo birtayna aad bay u mahadsan tahay inta soo socoteen waynu soo dhaweyn doonaa fadhiyo weynta sariicaad dadka ku dhow lahaanshiyaha janalka milkiyadiisa leh waxaan idin leeyahay karaamo iyo sharaf iyo ciise dushiina ha ahaato. barnaamijka maanta waa barnaamij aad u xiiso badan run ahaantii aan rajeynayo in aan wanaaga u arki doono wanaagana dhinaciisa aan wax badan aan uga xeerin doono hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo idmo. labadii fanaan ee waaweynaa ee kala tagay waa Cawaale Dayr iyo Najma Nashaad waxa ay noqotay sanadkii la soo dhaafay qofka kaliya ee hal sano gudihiisa oo aan muddo badan u dhaxaynin saddex qof lagu tilmaamo. mid waa midkay kala tageen oo Cawaale Dayr, midka kaleetana waxaa lagu tilmaamay Bashiir Hanuuniye oo taqaanaan musician ah, midka saddexaadna waxaa lagu tilmaamay Gulad Simba walaalkii. haddaba saddexda waxaa la yiri ka ay kala tageen marka laga reebo labada kaleba isla sanadkii gudihiisa ayay guursatay ayaa la yiri. waliba xataa aan ilaahdee Bashiir kadib waxaa haddana mar labaad loo saariyay ninka odaga ahaa ee Najiib Bula. waxyaabaha la yaab kale ee aan markaasi anaga ka fahmayo iyo waxyaabaha laga sheegayana waa kaaf iyo kala dheere. waxaa jirto dadka abwaaniinta iyo fanaaniinta ah waxa ay waxooda ku dhameystaan ama hooshooda ay ku guda galaan hees waxaan idin hayaa hadda muuqaal la yaab mudan. ma marka ugu horeyso su'aasha waxa ay soo dhiibtay ama soo dhiiban doono ninka Cawaale Dayr ahaa oo hawada u soo marsiyay garnaqsi aad u yaab badan oo haddii uu soo gaaro aan hubo in aad la yaabi doontid ama kaag iyo fajacna dartii aad madax la qabsan doontid. horta bar marka ugu horeyso Cawaale Dayr haye dadkii kala gadaa qarsada waxbaa ka dhex guuxay garbaan ku dhiganayaa wadoonkuna waadigiya gadaac lama doonay garowsa waxaan ku sida aynu dhammaan marqaati ka wada nahay waa hadal weyn oo run ahaantii xigmadaysan loona dhiibay Najma Nashaad loogana baahan yahay in ay jawaab ka bixiso. jawaabta ay ka bixinaysana ay ku salaysan mid nafteedii iyo qalbigeedii ka soo godo. haddaba in badan waxaan isweydiin doonaa waa ay soo jawaabtay iyadana markeedii ismay celin waqti badanna may soo qaadanin oo markii ayay soo jawaabtay. maxay ku soo jawaabtay? maxay kula tahay inay ku soo jawaabi doonto? waxyaabaha aan jawaabteeda ka dhex muuqan doono waxaan rajaynayaa in aad si wanaagsan oo aad uga fiirsateen oo run ahaantii aad dhiraandhiriseen in aad u dhageysan doontaan oo aad u daawan doontaan kadibna afkaarteena xagga dambe ayaan u dhigan doonaa. bal iyadana jawaabteeda maxay tahay Najma hayi? inaan amiirsaday hamoodinay aynaan bogsaday hamoodinay mahankii igaracayba maqani mahankii igaracayba maqane. sida aad soo wada daawateen iyadana waxa ay u soo dhiibtay ilaa imaantadan la taagan yahay inuu qalbigeedii weli halkii yahay. macnihii inuu weli qalbiga oo saldhigiisa yacni degaan ku yahay Cawaale Dayr. run ahaantii labadan qofood waa laba qofood oo isqabay oo ilmo isku leh. dadka markay ilmaha isku leeyihiin inay kala go'aan waa ay adag tahay. wax walbaba ha la sheego ama aragti walba aanu qaadano labada qof markii ay awlaadi ka dhaxayso in ay kala go'aan oo ay kala tagaan aad bay u adag tahay oo suurtagal maaha oo aad bay u adag tahay
in labada qofood ay nolosha ku kala beydaan ama qof walba meesha uu doono in uu aado waa ay adag tahay haddaba iyadoo ay taasi jirto oo ay arinta sidaasi u adag tahay haddana waxaa jiro waxyaabo badan oo isku soo jiidayo waxyaabahaas waxaa ka mid ah awlaad markii ay qofkan la xiriir isdhaxdo halka ay u marayso waa ilmaha aabihii ama hooyadii qofka markaasi gacanta ku haysato labadan fanaana run ahaantii dad laga dhex shaqeeyay ayay u egiyeen iyaga iyo qoyska kale ee Sharma Boyba maanta waxa ay soo dareemayaan ama ay dareemi kareen annagaba in ay doonayaan in ay isku soo laabtaan laakiin tanaasulka ayaa labadoodaba moodaa inuu midka kale midkiisa ama dhankiisa oo aad uga adag yahay oo isleeyahay still ku dhima sharafta ha isdhiibin ha hirahirin sababta social media had waxa ku soo batay dad aan wax kale ku shaqaysan dad ku shaqaysto oo kaliya in ay ummadda isku diraan oo ay dhahaan hadii aad isdhiibto waxaad noqonaysaa nin daciif ah ama waxaad noqonaysaa gabar daciif ah is adkay horay u soco ha istaagin ha isjabinin faca ha u jabin ilaa uu soo soo raadiyo mooyaane adiga ha raadinin dhanka kalena rag waxa ay leeyihiin ha isdhiibinaha rag ayaa tihiin waxa la idinkaga baahan yahay inaadan qofka tanaasul u sameyn oo aadan eeg labada dhinacba waxa loo sheegayaa mid walbaba midka kale inuu san raadinin haddaba xaguu tanaasulka ka imaanaya adduunyadan intaan soo jirtay waxa ay ku soo dhisnayd waxa ay ahayd in la isku tanaasulo waxa ay ahayd in la is saamaxo waxa ay ahayd qof walba qofka kale markii uu ka qaldamo xitaa isagoona ka qaldamin midkii laga qaldanaa inuu marmarka qaar tanaasul sameyn jiray sida ay adduunyada ku soo dhisnayd marka hadii la diiday ninkii la dhahay ha isdhiibin oo ha isjilcinin nin adagna iska dhig naagtana la dhahay ha isjilcinin oo qof adag iska dhig labadaba hadii ay wada adkaadaan sidee baa loo noolaanayaa sideesa nolosha ay noqonaysaa maxaas laga damacsan yahay in loo noolaado sideesa dadka la doonayaa in ay noloshoodii u sii wataan oo ay u noqdaan qoysas dhisan oo aanan burburin markii ay burburaana halkii xal laga raadin lahaa miyaa haddana kula talinaa in aysan dib isugu soo laaban inaysan isa soo eegin inaysan qof walba qofka kaleeto oosan u tanaasulin oo nolosha tanaasul oosan uga samaynin miyaa sidaa isku raacnaa oo Soomaaliyeenta ay gacanta isku qabsan aan dhirahnaa sidaas ayaa wanaagsan naagna nin raadin ninna naag raadin oo hal kala joogo qof walbana deerkiisa yar ha iska ooto oo asaga sida uu doonayo ha u noolaado ayaan xayaata ka dhiganaa jawaabtu waa may tanaasul ayay ku dhisan tahay waxaan rajaynayaa dadka ay wax ka dhaxayaan inay tanaasulaad isku sameeyaan garab istaagaan isku ixtiraamaan go'aanada qaar qofka kaleetana inta aad u tanaasuli kartid in aad u tanaasushid hamoodin hadii aad tanaasushay in aad tahay qof daciif ah bal anigu xaggayga waxaad ka tahay qof qawi ah oo qalbigiisa wanaagsan yahay oo ilaahay jecel yahay oo run ahaantii saamaxaad badan ilaahay ayaa dadka saamaxo dadkiina isa saamaxaana aad bay u qurux badan tahay oo aan tala iyo tusaalaha mar walbaba inaan ku bixin ay ku wanaagsan tahay midda kale labadan fanaani waxa ay u muuqdaan kuwa isku soo laabanay halka ay kuwa kale ee Sharma Boy iyo Milyumaanka oo aan aragnay 100% ama 99 ba inay noloshooda dib u soo curatay oo ay isku soo laabteen ilaahay baan khayr uga rajaynaynaa inta is doonayso ay kala maqana Allah isku soo celiyo Allah isku soo dhaweey qalbiyadoodii waa dad muslimiin ah ma kala fogeyn doono insha Allah waxaanu leenahay si niyad sami ah isku soo dhawaada biidnillaahi alkariim waxa ay kula tahay mid iyo labo reer sariicad iyo waxa idinkaga baxayba waad nala wadaagi doontaa muuqaalka share gareeya la gareeyana oo geersiya asxaab badan inta mid xig ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa amaana Allah